ciyaaro aad u xiiso badan ayaa caawa ilaa galabta laga ciyaari doona shanta horyaal ee qaaradda Yurub haddaba koorme ay soo galayaan ciyaarahaasi muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa ee soo dhow daawade laaksar muuqaalka sina sheer kare ciyaaro aad u xiiso badan ayaa caawa ilaa galabta mar kale dib looga ciyaari doona shanta horyaal ee qaaradda Yurub horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaana kulamo aad u xiiso badan caawa ilaa galabta laga ciyaari doona kulanka ugu horeeya ee horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League galabta 9 saac ee bar waxa uu dhaxmari doona kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Crystal Palace ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Selhurst Park oo ay ku ciyaarto naadiga Crystal Palace Liverpool waxay doonaysaa inay adkaato si ay ugu dhawaato kooxda Arsenal dhinaca kale Crystal Palace waxay doonaysaa inay ku soo laabato wadada guulaha kadib markii guuldaro ay kala kulantay naadiga Bournemouth Brighton waxay 6 maqrib la ciyaar doontaa naadiga Burnley ciyaar aad u xiiso badan ciyaartan ayaan ka dhici doonta garoonka ay ku ciyaarto naadiga Brighton Manchester United isla 6 maqribnimo waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Bournemouth garoonka Old Trafford ayaan ka dhici doontaa Manchester waxay rabtaa inay ku sii socoto wadada guulaha kadib toddobaadkii tagay oo ay ka adkaatay naadiga Chelsea Sheffield United iyo Brentford ayaa sidoo kale 6 maqrib is arki doona kooxda Wolves waxay 6 maqrib la ciyaar doontaa naadiga Nottingham Forest kulanka ugu xiisaha badan horyaalka Premier League caawa 2 saac bar waxa uu dhaxmari doona kooxaha Arsenal iyo Aston Villa ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Villa Park oo ay ku ciyaarto naadiga Aston Villa Arsenal waxay rabtaa inay adkaato si ay u sii dheereysato hogaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League Aston Villa waxay rajeynaysaa inay Arsenal marsiiso wadadii ay marsiisay dhamaadkii toddobaadkii tagay kooxda kubadda cagta Manchester City oo ay hal iyo waxba kaga adkaadeen horyaalka waddanka Spain ciyaaraha laga ciyaari doono Real Madrid ayaa qayb ka ah caawa 6 maqribnimo iyo rubi ayaan Real Madrid waxay booqan doontaa naadiga Real Betis Real waxay rabtaa inay sii dheereysato hogaanka horyaalka waddanka Spain ee La Liga oo ay haatan isku dhibcan yihiin naadiga ciyaareedkan laga yaabay yahay ee Girona Serie A AC Milan ayaa caawa 2 saac la ciyaar doonta Atlanta ciyaartan ay ka dhici doonta garoonka Atlanta ay ku ciyaarto Inter Milan 4 saac 45 daqiiqo waxay martigelinaysaa naadiga Udinese horyaalka Jarmalkana waxa qayb ka Bayern ayaa ciyaar doonta 11 bar kalabta ciyaar soo galaysa Frankfurt garoonkeeda ay ka dhici doonta Borussia Dortmund caawa 2 saac bar waxay ciyaar doonta naadiga RB Leipzig Signal Iduna Park oo Borussia ku ciyaartay ciyaartan ka dhici doonta PSG caawa 5 saac habeenimo waxay martigeli doonta naadiga Nice ciyaar ka dhici doonta garoonka Parc de France ciyaarahaas ayaa saaxiib caawa ilaa kalabta laga ciyaar doona shan horyaal ee qaaradda Yurub